بسم الله الرحمن الرحيم داود كسودو وقربلا تي في وادوغا براتين برامج xiisa leh magacaygu waa Yaasin Aadan Weheliye daawade barnaamijkan waxaanu ku soo qaadan doonaa khilaafaadka soo kala dhaxgala madaxda dawladaha qaybta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda hadaba khilaafaadkan waxa la sheegayaa oo mar aan wareysanay qabiir ku xil dheer khilaafaadyada ka dhaca wadamada burburku uu ku dhacay sida Soomaaliya oo kaleeto in asal ahaan khilaafkaasi uu ka soo bilaawday waqti hore waana tan uu salka ku hayo khilaafka maanta taagan kadib markii dawladda Soomaaliya ay xurnimadeedii ka qaadatay gumeystayaasha waxa jiray gobollo uu ka kooban yahay wadanka goboladaasi uu ka koobnaa wadanka waa la kala qaybiyay qaar gobollo kale ayaa laga sameeyay qaarna sidii ay waagaas ahaayeen ayay ilaa haatan yihiin waxaanu ku casuunay oo inagala qayb qaadanaya qabiir ku xeel dheer arimaha Dr. Maxamed Cabdisalaan Cabdalla oo arimahaasi aanu ka wareysanay waxaanu weydiinay marka hore Dr. Maxamed Cabdisalaan Cabdalla kusoo dhawaaw Garabla TV su'aasha aanu ku weydiinayno waxa ay tahay maxaa sal u ah khilaafyadan soo noqnoqday ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim oo ku masantahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan doodahan ay ugu casuuntay Garabla TV waxaan rabaa su'aalaha intaanay ka jawaabin inaan dib u maleecsano dib u xoreyntii dalka hogaamintiisii iyo howlihiisii su'aashaas waxay u baahan tahay in dib loo eego minacsigii hoggaanka oo soo martay dawladnimada iyo qaabkii xorriyadda loo helay waxaan ma inaan ka jawaabno su'aalaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waxyaabaha isku hayaan meesha ka soo bilaabatay markii la helay xorriyadda dalka waxaa dhacday in loo qaybiyay laba goboleed oo ah waqooyi iyo koonfur waxay ka koobnayd 6 gobol waqooyina waxa ka koobnayd 2 gobol sida caadiga ah waqooyi waxa ka koobnayd waqooyi galbeed iyo togdheer koonfur waxay ka koobnayd bari mudug hiiraan banaadir jubbada sare iyo jubbada hoose sidoo markii la heshiinayay ayaa waxa dhacday in koonfurtu laga boobay sadkeedii lana siiyay waqooyiga si loo qanciyo dad gaar ah haddaba maalinta ay soo bilaabatay dad gaar in la qanciyo ilaa hadda waxaa ka taagan dhibaatooyin fara badan oo maalmo heer soo gaanayay xorriyaddu waxay noqotay wax lagu heshiiyey laakiin aan loo miran dhalkeedii waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo weliba ilaa hadda ka taagan xorriyaddii markii la helay dawladdii u horreeyay ee aadan cadde muddo ku dhawaada 6 sano ayay maamulka waday 2 sano waxaa hayay ninka la dhaho Cabdirashiid isagoo weli howsha wada ayaa dhintay kacaankii markuu dhashay waxaa dhacday in dalka lagu soo kordhiyay 10 gobol 10kaas gobol waqooyi waxay ku lahayd 3 gobol 2 gobol ayay waqooyi ku lahayd waqooyi 3 gobol ayaa noqotay 15 gobol oo kale waxay noqdeen koonfurta waqooyigu markasta wuxuu taagnaay habka waxa qaybsiga waa inuu noqdaa 2 qaybood meeshaas ayay ka bilaabatay sadbursigii iyo dhibaatooyinkii burburka dawladda biyogleeladii dawladda waxaa dhacday in markii lagu tagay carta qaab ka duwan qaabkii hore wax loo qaybiyo sidii markii hore ba loo suubiyay sadbursi ayaa ka dhacay waxa la yiraahdo qabiilo kala waaweyn iyo qabiilo kala yar waxaa dhacday isla sidii oo kale sadbursigii dhacay 60kii markii la heshiiyay ayaa haddana sidoo kale waxaa dhacday in sadbursi la qaado qaybta bari oo loo yaqaano wadda Puntland ayaa ah qaybta u badan sadbursiga inay rabta koonfurta inteeda kale in laga qaybsiyo waqooyiga la simo ama waqooyiga laga saara meesha booska ayadu ay taagihiin ay ku taagnaadaan saasna wax soo gala ma aha waxyaabaha hadda ku keenaya marka dhaqaalaha iyo howlaha kale iyo heshiisiintii la galay ee dawladda federaalka ah markii la yiri maamul goboleedyada loo qaybinayaa nimanka la dhaho Puntland waxay dhaheen annaga u sarreeyna hooyadii ah mudnaan kasta waa in la siiyaa dad marka wax kasta oo la keeno waa in negative ay kana si loo helo mudnaan dheeriye si arkaydeen ma dhaweyto kale waxa dhacday in qolooyinkan la dhaho financiga ama maaliyadaha ee dhan waxa u jirnay xiriirka taas oo ah sadbursi marka horeba aan la ogeyn meesha oo ka yimid iyo cidda leh dawladuna waxay tahay mid markasta salka ku hayda in hebel qanci oo aan qancinay qaynuunka
ma haddii qaynuunka ka sarreeyo cid gooni ah waxaa markasta dhacayaa in qaynuunku hooseeyo qof gooniya la sharfo ama gobol gooniya inta gobol gooniya la sharfayane mar kasta waxaa imaan doono sadbursi ama cadaalad darro waxyaabaha meesha yaalla waxaa ka mid ah Puntland waxay leedahay waxaan rabaa gobolada kale oo dhan 4 maamul goboleed waxaan rabo in la siiyo aniga kaliya la siiyo daawadayaal intaasi ayaanu ku soo afmeenaynaa qaybta kaleeto la soco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي